Ganacsiyada yaryar iyo kuwa dhexe ee loo yaqaan SME-ga waa halbowlaha iyo lafdhabarka dhaqaalaha Soomaaliya. Ayaga ayaa abuura shaqooyinka, kor u qaada dakhliga qoysaska, sidoo kaleetana saameeya dhaqaalaha guud ee dalka. Haddaba su'aashu waxay tahay, sidee ganacsiyadaasi ku awoodi karaan inay helaan adeegyada maaliyadeed ay u baahan yihiin si ay u gaaraan awooddooda ugu sarreysa? Maanta waxaan falanqeyn doonaa daraasad dhowaan soo baxday ee qoreen Cabdicasiis Cumar Warsame iyo cilmi-baarayaal kaleente, taas oo diiradda saaraysay sidee electronic banking-ka waxa loo yaqaano e-banking-ka uu saameyn ugu yeeshaa ka qaybgalka maaliyadda ee ganacsiyada yaryar ee Muqdisho. Magacaygu waa Maxamed Muumin. waxaad la socotaan barnaamijkeenii fahamka cilmi baarista. haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir, haddaa hore noola joogtani mahadsanid. Cilmi baaristani waxaa lagu xusay in Muqdisho ay u tahay hoy kumanaan ganacsi oo raba in ay dib uga soo kabtaan xasilooni daradii soo martay dalka. Inkastoo rabitaanku aad u sarreeyo, balse weli waxaa jiro caqabado hortaagan SME-ga, taasi oo ay ka mid yihiin xanibaadaha helitaanka adeegyada maaliyadda iyo adkaanshaha adeegyada deymaha ganacsiga, iyo fahamka aqoonta ama financial literacy-ga ayaa ah caqabadaha ugu waaweyn ee haysta SME-ga. Cilmi baaristani waxa uu dhexdhexaad u ahaa su'aasha taasoo dhahaysa, bangiyada dijitaalka ah xal ma u noqon karaan caqabadahaasi haysta SME-ga? Daraasadani waxaa laga qaybgeliyey 5,431 ganacsi, kuwaas oo isugu jira qaybaha kala duwan sida ganacsiga tafaariiqda, adeeg bixiyaasha, iyo warshadaha yaryar. Cilmi baaristu waxay xoogga saartay 4 qaybood oo ka mid ah adeegyada ay bixiyaan bangiyada: 1. Mobile banking, 2. Internet banking, 3. ATM service, iyo 4. Agency banking. Natiijooyinka ka soo baxay daraasadani waxay ahaayeen kuwo aad muhiim u ah jihooyinka dhaqaalaha. Mobile banking-ka wuxuu noqday midka ugu muhiimsan ee saameynta ku leh markii la joogo ka qaybgalka maaliyadda. Waa adeeg fudud oo qofku heli karayo lacagahan oo ku bixin karayo. Internet banking-ku ayaa noqday kan ugu weyn ee leh saameynta hufnaanta maaliyadeed, maxaa yeelay ganacsiyada isticmaala online banking-ku waxay si fudud u maamuli karaan koontooyinkooda, waxayna u diri karaan lacagaha si degdeg ah oo ammaan ah. ATM service-ku wuxuu ganacsiyada siiyey xorriyad maaliyadeed, ayagoo heli karayaan lacag caddaan ah markay u baahdaan 24 saac 7 maalmood, ayagoo ka maarmaya ku xirnaanta waqtiga shaqada ee bangiyada. Agency bankigu saameyn weyn kuma yeelan ganacsiyada ka qaybgalay daraasadani. Marka aan dhuuxno xogtani, waxaa noo muuqata tiknoolajiyadda maaliyadeed ee fintech-ka in ay tahay furaha dhabta ah ee lagu furi karo isbeddelka dhaqaalaha ganacsiga Soomaaliya. Marka ganacsigu isticmaalo adeegyada dijitaalka ah, waxaa yaraada kharashaadka ka dhasha maaraynta lacagaha caddaanka ah, sidoo kaleente waxaa badbaada waqti badan. ugu dambeysna waxaa la helaa fursado maalgashi oo mustaqbalka ah. ugu dambeyn, daraasadani waxay fariin cad u diraysaa bangiyada iyo dadka dejiya siyaasadaha lagu maamulo maaliyadda. haddii la rabo ganacsiyada SME-ga Muqdisho in ay koraan, waa in la xoojiyaa kaabayaasha internetka iyo mobilka. haddii la isku daro aqoonta iyo tiknoolajiyadda, ganacsiyada Soomaaliya kaliya ma noqon doonaan kuwo badbaado, balse waxay noqon doonaan kuwo barwaaqooba. Sidee u aragtaa adiga isticmaalka e-bankiga ee ganacsiyada yaryar? Ma kula tahay in uu yahay xalka ugu habboon? Fadlan nagula wadaag aragtidaada qaybta faalooyinka.